أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو أو بو تو سو جو كو كو دو زو رو زو سو weligeed ma daahdo noloshu waxaan bilaabay fasallo quraanka kariimka ilaahay fadligiisa waan dhigan doonaa insha Allah waxa sidaas yiri fanaanka reer Gini Musa Sandiana Kaba oo ku magac dheer Grambi Soomaaliduna u taqaan Dooliyare fanaanka Grambi ayaa muuqaal laga baahiyay waxa uu muujinayaa isagoo loo bilaabayo barashada quraanka kariimka iyadoo lagu guda jiro bisha barakaysan ee Ramadaan milyaneerkan dunida taageerayaasha badan ku leh gaar ahaan Soomaaliduna dhawaan waayihiisa nololeed isha ku haysay ayaa waayahan la daalaadhacay ka fogaanshaha saaxiibadiisii hore oo ay si weyn isku jeclaayeen waxaana ka guursaday sida la sheegay wasiir ka tirsan xukuumadda dalkaasi Gini Grambi ama Dooli ayaa dalkaasi Gini ku dhashay 1990kii haddana da'diisu waa 30 jir waxaana lagu qiyaasaa dhererka fanaankan Dooliyare 1 mitir halka culayskiisana lagu qiyaaso 25 kiiloomitir sidoo kale fanaanka Grambi ayaa 2020kii ku biiray siyaasadda gaar ahaan xisbiga ACU isagoo isku soo taagay doorashada wadankaasi Gini ka dhacday 2020kii xog ururin lagu sameeyay dhaqaalaha uu haysta fanaanka Grambi waxa lagu sheegay inay gaadhayso $10 milyan waxaanu lacagtaasi ka sameeyay fanka boqolaal taageerayaashiisa kamid ah ayaana maalintii heegan ugu jira la kulanka ninkan ay Soomaalidu u bixisay Dooliyare hadda se fanaanka Grambi ama Dooliyare waxa uu soo jeestay akhrinta iyo sidoo kale barashada kitaabka quraanka kariimka